barnaamijka bulsho bile oo ah barnaamij ka turjumaya isdhexgalka bulshada oo uu maamulka gobolka banaadir ugu talagalay in la isku xog wareysto ayaa xalay waxaa wejigii labaad loo qabtay 4 degmo oo kala ah degmooyinka Waaberi, Xamar Jajab, Hodan iyo Hulwadaag. waxaana madasha kulanku ay ahayd degmada Waaberi, waxaana bulshada kala soo qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir. duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ku dheeraaday ka hadalka iyo faa'iidooyinka barnaamijka bulsho bile waxa uuna tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay ahmiyadda barnaamijkan uu u leeyahay shacabka magaalada Muqdisho. ujeedadiisu waxay tahay bulshada iyo mas'uuliyiintooda in la isu soo dhaweeyo, la soo fariisto, la kala bogto, aan la isu bukin. su'aalaha la weydiinayay waxa ka mid ahaa teeraayan bixintii aawe barnaamijyadii teeraayan bixintii ay ka mid tahay tan la soo fariisto, la is dhiirigeliyo, la isku xirnaado, la wadaago horumar iyo nacfi. barnaamijka ayaa lagu soo bandhigayay hidaha dhaqanka iyo wax soo saarka dalka, waxaana qaybtiisa dambe ay kulanka bulshadu su'aalo ku weydiiyeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. su'aalaha ayaa dhammaantood ka turjumayay waxa ka guuxaya shacabka ku nool 4 degmo ee barnaamijka loo qabtay iyo in shacabku xog ka helaan shaqada ka socota caasimadda oo ay gudoomiyaha gaarsiiyaan baahiyaha ay qabaan. canshuurtu waa waajib saaran qof kasta muwaadin inaan bixinana waa waajib waana bixinaa. waxaan weysanahay xuquuqdii aan ku leeyahay gobolka maadaama aan canshuur bixinahay. xuquuqdii asaasiga ahayd sida adeegyadii caafimaadka, waxbarashadii, amnigii, nadaafadii, biyihii macaana, waxyaabahaas oo dhan ma haysan anaga. waxaan noo sheegtaa riyada cawada aan kaa qorayno ama taariikh cawada aan kaa qorno oo aad leedahay gobolka banaadir waxaan kaga tegi doonaa qodob hebel ama horumar hebel iyo hebel. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ka jawaabay su'aalaha kaga yimid dadweynaha uu kula kulmay degmada Waaberi ee gobolka banaadir. waxa uuna faahfaahin ka bixiyay adeegyada dawladda hoose Xamar xilligan ku howlan tahay horumarada la sameeyay iyo kuwa la damacsan yahay. waxyaabana haddaan qabanaa oo canshuurtii ayaa lagu qabtaa, waxyaabana hadda loo socdaa oo ay ka mid tahay inaan iskuullada hoose dhaxo dhan la wareegno iyo caafimaadka aasaasigaana inaan la wareegno ayaga maamulkooda. dadka ka shaqaynaya caafimaadka in maamulka uu mushaaraadkooda siiyo, daawooyinkii, qalabkii, waxaasoo dhan aan la soo wareegno. waxaan u soconaa oo kale ambalansooyinka hadda aan leenahay oo bulshada loogu adeego iyo dabdamisku meel ay noogu xeraysan xarig noolay meeshii ama dab uu ka jira loo dira. waxaan u soconaa inaan gaarno inaan ambalansooyin iyo dabdamisyo degmo walba u helno oo ay diyaar ku noqoto. waa meesha aan u soconno si ambalansadu markay duruuf oo caafimaad ay timaado si aysan uga soo daahin goobta, dabdamisuna uusan u soo daahin. ambalansooyinka baabuur iyo qof wada iyo tiim la shaqaynaa kaliya ma ahane qalabkoodiyaa saaran macnaha. waxaan idin sheegayaa xero la yidhaah baadi qabad oo mar hore la dhisay laakiin burburtay ayaan hadda dhismo ka wadnaa oo gebageba ah weliba. xeradaas waxa ay ku taal kawaanka gowraco bari koonbar meesha ayay ku taallaa. xeradaas waa gebagebo. marka xeradaas xarigga laga jaro meediyaad ka ogaan doontiini ayaan muddo u qaban doonaa xoolaha. dhammaan xoolaha magaalada ku jira oo dhanna waa ka saaraynaa. xeradaas ayaa lagu xarayn doonaa wixii cidaha iskalow ay ka ceshi waayeen beledka. waxyaabaha aan dhiigsanayo aanna rabo inaan uga tago magaaladana waa badan yihiin. waxaase ugu waaweyn airboortka Muqdisho oo aad taqaaniin
oo dhammaantiin aad isticmaashiin diyaarado aad u fara badan ay yimaadaan kasoo degaan kana duulaan eraboorkaas magaalada dhexdiisa ku yaallaan waxaan qorshaynaynaa waqti dhow haddii alla idmo inaan dhagax dhigno eraboor weyn oo international ah oo magaalada muqdisho ay leedahay kana waasacsan midkaan deked weyn oo caalami ah oo midda hadda ka waasacsan in loo dhiso magaalada. barnaamijka bulsho bile ayaa toddobaadkii hore loo qabtay degmooyinka dhaca bariga magaalada muqdisho.